هذه dhibaatay shacabka Soomaaliyeed markay joogaan waddanka Soomaaliya inay gudoomiyaha shacabka Soomaaliyeed laakiin siyaasiyiinta ciidanka Soomaaliyeed hal aad ka taagan inay ka difaacaan dhagaxtooda aad jamaahiirta ciidanka ana baashaare soo saaran idinku waxa u taagantihiin inaad badbaadisay shacabka laakiin ayaga waxay u taagan yihiin qawaariijta inay baadaan taasina waa waxa farqiga noo dhaxeeyo wax la sabab dhig kana ma wax walba ay kiriyaan wax walba ay sameeyaan marag oo fashiliyo oo ma taqaanaa guuli waan ka gaaraan anaga ma dadku korkor inta sagaal tobanaad ururkeeda la waa ka 192 guulaysta alxamdulillah ilaahu ma san ciidanka dalka Soomaaliyeed oo deegaanka Samiidii caanoole waa ku maasan maanta waa guulaysan howlgalkan oo ummadda in lagu dhibaateeyo wadada loo geliyay alxamdulillah ilaahu ku maasan waatana waa ujeedin baashi waa soo bixinay iyadoo sideedii aan soo bixinay guulaysan saraakiishii iyo macnaha dad wax ku siinayaan ciidamadan waxaan rabaa in kulli wada saraakiil ay wada noqdaan rabaa inay darajadooda garabka ay gudgududiyaan rabaa waatana waa ku guulaystaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd kaaminada wana ka tirsan ururka 192 ee guutada 19aad sarkaal balkamaran aadan u faraxsanahay assalaamu alaykum markuu ugu horeyso dhamaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo magaalada degan bareeray aan aad ugu faraxsanahay dagar ee cadawga ee degan in ururka 192 ay soo bixiyeen miino ay ku aaseen wadada cadawga waxaan inta badan anagu garabna siiya dadka bulshada uu gudoomiyaha ka mid yahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar walba aan u dhiiranahay aan diyaarna u nahay ummadda Soomaaliyeed inaan u shaqeyno waxaan nahay guutada 19aad aadan u maasantii